وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع فيه ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا. السلام عليكم مشاهدينا الكرام. maanta waa podcastgeeni labaad ama waa barnaamijkeeni labaad oo ahaa cishma alqur'aan, barnaamij la magac baxay, barnaamij magaciisa uu aad u sareeyo, barnaamij la magac baxay cishma alqur'aan, qur'aanka la noolow ayaa xalqadiisa labaad maanta halkaan idinkaga soo gudbin doonaa. maanta looma kala hareyn barnaamijka waxaa ku casuuman alqaari al-ustaad cabdijabbaar. ustaad falyatafadal mashkuura maajuura. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أحمد وأن كده وهي برنامج كان آتك وقيمة بدن اللي مجع بحي لنا الله قرآن كريم وكده وهي بارك الله فيك. هذه أستاذ هذا أو ما صنتهاي أستاذي برنامج كاني صاد كدريم يسمع كلية وحنا كهذا الله قرآن كفائدة ديسة لما سوكوا كروان أبنهاي iyo waxyaalo quraan ku saabsan waxyaalo ka baxsan oo quraan kala ma hadalno markay ustaadi ku soo dhawa aan ku leeyahay barnaamijka waan ku mahadcelinaynaa sida wanaagsan inoo soo ajiibtay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha ku xifdiyo ustaadi ku dhawahay barakallahu fiik shukran. okay ustaadi barnaamijkiisa intaanan gudgalin waxaan sameeynaa quraan ku daafuranaa maadaama uu la magac baxay cishma al-qur'aan. marka quraankana waxa uu daafuraya qofka barkaasi barnaamijka igala qayb qaadanaya marka ustaadi ku soo dhawa ku leeyahay ما صنتهاي بارك الله فيك جزاك الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حسبك أستاذ هذا وما حسنتها إلهي سبحانه وتعالى حق حفظه. أستاذي سؤال وهريس أنكو يدينا حيتهاي أستاذي مراحش القرآن كعدل صومرتي نوغا شيكي سين وذ أقنهاي dadka markay quraanka baranaya maraaxish ay soo marayaan saddex ay kala baxdaa mid iska normal way midna dib way midna iska fudayd way marka aad midee la soo martay quraanka barashadiisa. alxamdulillaah quraanka anigu waxa soo baray oo ii bilaabay alifka ama farbarka sida Soomaalidu u yaqaanaanba nin la yiraahdo macallin Mustaf xafidahu Allah wa ra'ah. quraanka xaqiisaan markuu qatimay duruufo jira awgeeda waa meel kale aan soo deganayna waa macallin kalmaan Umar la yiraahdaa ii waday quraanka ilaa 3 jeer aan ku sii qatimay ولين حفظي ما هينين وحان اسكو هيستينا قرآن كأقانو لكن قرآن كحبا كمان هينين معاني كلا ولي هذا معلم محمد شيخ باري بارك الله فيه الله بركيه يا قرآن كأي بلاوي وحفظي أضك حاجة عن كسوق هذاني وحيابا حصلت لا يبكى وحكم ذا معاني كده ذلك نقول بحنجري آيات وحلو حفظي سيد أوكل هريان أو آيات بآيات وحكته آيات وحسمين جري سيد اسكو حاجة ما كأحفظينه آيات هوصل لقصة بلاوي جردنا كرر لو ذي جري معاني أبد ذلك بنو أها الله بركيه وقيب لحد له كسو قاطي انت كدبنا انا اسكو سياسه القران معانا كان تصحيح حقيس ان كمري حفظي في عن انا اسكو استمكن ان امام في عن اهاي ومعانا امام iga dhigay salaadahan gali jiray iyo sanadna saraabiix la ii dhiibay kadib markaan macadka tartiil galayna waxaan ogaaday wixii horena iska ahaayeen marartu la adri inay iska ahaayeen wax ku bilawnayna Allah ruuxan waxa wanaagsan naftiisa inuu ka dhigo mid waxba garanayno si wax markaa u barto aad iyo aad kadibna halkaas tasxiix ku qaatay iyo taxfiid kadib markaa ka sii baxay markaan tartiilkii aan ka sii tayna imaamnimadeedu markaas sii fiicnaatay ma sha Allah. ana aaminsanahay maalin ka dambeeyay qofka quraankiisa inuu ziyaado oo sii xifdi macnaha aad iyo aad xifdigana ma dhamaado qofka haduu isku haysto xaafid inuu yahay quraanka bis uu soo xifdiyo saa uu kitaab kale uu ka akhriyo waa laga fiican yahay mar walba quraanka inuu xifdiyo waxaan aaminsanahay qofka laba inuu sameeyo quraanka labadaas uu ku liibaani karaa mid oo wardi ah quraanka oo yoomiin uu akhriyo inaan dhaafi karinba haduu xanuunsan yahay haduu caafimaad qabo iyo mid kale oo ah maxaa la yiraahdaa muraajaciin uu leeyahay muraajacadan oo quraanka uu ka akhriyo si xifdigiisa quraanka uu adkeeyo quraankan xifdigiisa uu sugo kadib qofka quraanka meel saari kara ولين أقصد ذلك ونكتب معاني دي قرآن. ما شاء الله أستاذ الله يبارك فيك هذا وما سنتهي أستاذي وحد هذا القرآن كمركي وهريسي أن دمية أصله إن أقانو معلنا يقول معلن كاسي ما وحي كده أنت القرآن كمر أضو دمية لو عليه أو دبلو وصو بلاوي. سيدو أساس عن لي كرنا طبعا صوتها معاني كي حقي سان كل دمية وحنا خذين حبة كجرين بقى هذه كوا حين وقتين الله بلاوي وقرآن كمركها أدي أستاذ سيدك آمنتي إن القرآن كمرة دمية لو برنا أستاذي وحكينا كرت أصلي عرورني ماذا يقف كيرانتي سما كوريري هاي
waxaad arki qofka xitaa anaga markaan shareecada hadda aan baranayno kale iyo markaan diinta baranayno diinta markaan baranayno oo aan bidaayaadkii diinta hoose aan ku joognay waxaan wadnay inaan culimadii ka aqoon badan nahay way jirtaa marka qofka laakiin qofka markuu cilmigii xasilo wuxuu keenaa inuu tawaaduc inuu dhulka dhigo iyo markaa naftiisa inuu gartay qadarkeeda waxba garanaynin kadib marka qofka dadaal badan la yimaana kadibna sacigiisa iyo dadaalkiisa ilaahay ma dayacay subxaanahu wa tacaala أستاذ إلهي سبحانه وتعالى كبرك يا أستاذ سؤال شاء ما وجوابتي أستاذ سؤال كلا أنك ودينا يو سؤال سدحا وحيد هاي إن أستاذ مراحش هذا القرآن كه وحي كو أتك صومرة محا مراحش كو أتكيد مالين كو دعوة وأصل هذا هاي ما إلا بدون أنت تنوش هذا أضمن شيء حيابها يقول هذا القرآن كي صومر حاجة كمذا القرآن كرت حوبها هي ألا درتي إن الله برتو إخلاص الله برتو لو ناجيني يدا يقفك إنه آمنوا الله فودين كردو الله فودين ما فودين سماع القرآن وحان آمني أنا والله ومر معاني كان كلا ضمن حاجز كل مي القرآن كان عن حافظها هاي ولكن وحون يقدر ميهين وحان آمني دي إن القرآن كي حزب أن كبحي كرو سيدي ما كود النظام كسكود ما أنا كصورة يونس سوكر أن طبق لك عن كسر دمي كلا صورة دي مر بعد كلا صورة دي دمي إلهي أمر كي ويقعد كات صورة دي وأنا يقول القرآن كدار ختمية وحين قد صورة دي مري واي سورة هود نوعيجسي درناته كدبنا إلهي ثلاث صارت وأنا قرت أظن إن هاي إلهي أنا أباهنا هاي أدو إلهي فضينا إني فضيد اسمايان هدو إلهي أتكينا إن أتكاي اسمايان كدب مكان إلهي لا ثلاث صارتي وأن استغفر الله سلي ماذا وأن إلهي دم إلهي فويديستي إلهي سبحانه وتعالى كدب وإيه فضيدي سورة القرآن كيقول هذا أنا ما أركن حتى وحياها الله يا بحكم ذا سورة داس وسورة الشعراء وآيات الأسكوي جيهين صلاة تراويح مكان يجي جرني وحنسين جردي ودنين جارة هاي وحون خلادات إن أو إيمانين هذا حيران برون كعيارين فاول سان أوجلين سان فاول أوجلين مركا أرضي القرآن كانوا حنكو يرجلنا أن أوشها إنه آمن القرآن إلهي فوذين كرو لكن أظن كسعي على جربا ذلك على جربا جهد إنه بحيو كذبنا وافجين الله إسقله سؤالك وافجين وين جهدنا جهد سال ربع سؤالك وافجين دوناون بقولك سجاشن يسال لبع سجال وعواي ذلك واي وقدم بس بقولاتنا إنه إلهي كوافجي واي نفسادي إلهي أكو بركة وساي سؤال أفراد أو كويدينا يو وحقيت هاي نفسادي سومالي إنه هذا وحكسو بدنايا والدين تولي بد سندها ضمبي وحكسو بدنايو إن أرضي قرآن كمركي لبرايو مسدكسو إلى جيو مدارس مركي لجيو يعني مركو ورئيس بقرآن كودمي أرض والد كإله هميل كي قرآن ودمي مركي وان كجوجي دكسي سهولة جينيا والدينتاس maxaad farin u diri lahayd maadaama quraanka aan lagu adiga hadda aad leedahay intaas oo maran ku celiyo quraanka anoo islahay waad baratay hadana aan ku soo celiyo waxaan misna quraan uga yeermay hadiya marka waalidiintaas maxaad farin oo u diri lahayd waalidiinta waxa leeyahay ardayga hadaa tusido ama canugaad inaad tiraahdo kale ba ku yar yahay asoo diinta bilaabo kale sheeqa tahay canuga luma qaariyad hadaa tiraahdo canugaas waxa quraanka qatimana macaankiisa inuu ka fiican isku maleeya canuga marka wuxuu aaminaa marka quraanka dhameeyo quraanka dhameys macaankii waa seematin waa isku mid ah tiimba ardayga waalidka waxa la rabaa waxa wada waalidka waa ardaygii waa daaqay awood ma lahan isku wadi karo inuu ku adkeeyo ku canaanto ku garaaco inuu ardayga quraanka mudaaraseeyo barto oo ku celceliyo oo macaaninka agtii laazimo haday yasaan ama ay isiraahdaan quraanka dugsi quraan Soomaaliya ku dhameeyay inay geeyaan meelaha qiraa'adka lagu barto asaga ogaan doona inuu qadar quraanka ka joogo asaga ogaan doona falyatanafasil mutanafisun rag faciiso dadaalayo haduu arko kale asaga naftiisa u dadaali doonaba oo marka maxay ahaydee waalidkan inuu ka bixiyo la rabaa oo ardayga maxay ahaydee mar walba ku dhiirigeliyo quraanka inuu barto u joogteeyo ama dad tirad guriga fadhiiso asoo 30 jir wax doona qad samcalla quraanka aan meesha uu korayso aan xifdisanahay qad samcalla waa quraanka kale ma hayo inuu yiraahdo ustaad su'aasha kale isla iyada ay u egtay su'aashan kale aan ku weydiinaa waxay tahay ustaadi waxa dhacdo inta badan aadna ugu soo badanaya maalmahan dambe dalkeena in qofka markii uu quraanka oo bilaabo barashadiisa waliba dadka waaweyn yaraantooda markay quraanka soo bilaabaan kadibna waqti ay u waayaan quraanka adduunyo ay ka mashquuliso markay weynaadaan quraanka barashadiisa markay isdhahan baro hadana qof weynaan ahay quraanka hadda ma quraan baran kara qof weynaan noqday ay leeyihiin dadkaas maxaad farin u diri lahayd oo waalidiinta ay u badan yihiin dadkaas waxaan leeyahay qofka Sheekh Mustafa ma ko dhageysto kale xayab badan oo fahmaan nolosha wadaad culimada maxay islaamka kamid ah waxa la yiraahdaa 40 sano waqiila ayaa la yiraahdaa shaada cunay macaasi ku dhex jiray maalinku 40 gaaray bogtay ilaahay wuxuu yiri balaga 40 sano markaas qofka aqligiisa dhameystirma markaas uu diinta bilaabo inuu barto 60 jir maalinku 20 sano cilmiga baranayna caalim aan laga caalimsanayn aha aan la gaarinba la ixtiraamo laga dambeeyo qofka haduu aamino ilaahayna tala saarto inuu quraanka baran karo asoo 70 jir uu baran karaa
قصة ku xasuustay sheekh la yiraahdo Sheekh Cabdiraxmaan la yiraahdo jecelahay culimada tabliiq yiraahdo Soomaalida kamida Allah barakeeyo sayidka cali jimcaale Soomaali ka wacdinayo Ramadaan ay tahay 23 rajeynaya qiso Quraan ku saabsan oo ka sheekeeyay wuxuu yiri wadaada wuxuu yiri Quraanku hore inuu barto gobolada mid kamid ah khuruuj aan wada baxno u dhahay galgacyo noogu har wadaadkii may wuxuu yiri xalqaadkan Quraankan gala waxna ma khal 60 jir ahay waan kale xano dhahay 6 sano kadib Quraanka waqtigooda sii wada dadaalay Ilaahay waa waafajiyay 6 sano kadib xalqaad kale ninkii macallin waa الله يا قصر كل عام نجرب كل عام الله معنا صور مش الله يضمن وقت يوقلي جهد يوقلي إلى نوافجية والدين تحل الله هو برن كرا فإذا عزمت فتوكل على الله قفك إلهي تلا صارتن إلهي ما ضيعه هذا الذي إلهي قفه ونجيه إلهي حدود القدس عكويري عز وجل أظن كي يجمع إيش يجمع ليستان للجوجا أنك الجوجا يجمع ليستان وأحد أظن هناك ملايستان وهناك هلي أظن وحى ملاك هم ملايستان وحين سينايا لأن وحيري إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا marka sida waa waalidiinta iyo dadka waaweyn inay dadaan la rabaa boqol jir duu uu baran karaa aadiyad ilaahay imrigaas baduu ku siiyay wax kalena uu ku siin karaa waxyaabaha hadda Allah waxa kamid ah sheekh kamid culimada Soomaaliyeed Sheekh Maxamed Macalin Cabdi Umar xafidahu Allah wa ra'ah ayaa asagoo goboladan joogo maxay ahayd Soomaali galbeed DDS oo dawladda deegaanka Soomaalida wadaad boqol sano jira wuxuu yiri sheekh anigu haddaan toobad keenay macaasidii maanta haddaan ka baxay haddaan rabaa inaan Quraanka barto haddaan alifka laga bilaabay waana baranayo yiri inka go'aanka u qaatay sanadkii dib xariijinaa inuu maxay ahayd aan aragna asagoo wax bartay wax badan bartay mar dhow ay dhacday sanadkan 24 ka dhacday hadda dhamaaday boqol sano ninkaas Quraanka ku bilaabay الله أكبر أستاذي دتك هذا كهمنا دتك الله ويكل معنا أستاذي دت قرآن سد حبان بس كانوا دت قرآن كي كانوا دت قرآن كأن بقونين يودت قرآن كأن حفظية مركز دت قرآن كأن أقونين دت سد حدان دت محط الله سين دت قرآن كحفظية يودت قرآن كأن أقونين يودت قرآن كأقانو أو ولي أنا حفظيني سد حدان دت محط الله ودري له حرت خوفك قرآن كأقونين وحال جرب قرآن كإنه برتو وقرآن برتو وكود ذا القرآن قفك محي هيدا وحي قاننا إنه وحونا كلمة هنا إنه بحسد القرآن كود ذاله قفك حافظنا وحال جربه هبين كيس إنه نولستو وهبين كيس لقى جرتو القرآن كم كل جوا نيانا إنه وانسما وقلبي جيسي قلوبتي سبا قفت ذكر القرآن إنه يقول جانا الرب الله كعس مكلا القرآن كل جوا نيو القرآن كإنه كتب دبران يكون خشوعان إنه القرآن كمرة والبسيط ضلبان إراديان ولي وذا أي برتان إلا يوايل كنا قضان وحي هذا كبد بقضان إلهي أهل كيس عندك خاص قوة ما شاء إلهي سبحانه وتعالى كفدي أستاذي سوى نحسن عدك أذيعات وحي إنه فهمتين إلهي كفدي أستاذي سؤال شك أنا كويدينا وحي تهاي سؤاليه اللي حكم ذا أستاذي Soomaalida horta wadanka waxaan nahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala hana barakeeyo dadkeena iyo waalidiinteena iyo culimadeena lagu amaano xifdiga Quraanka saasoo ay tahay Quraanka markaan barano waxaan ku liidanaa dhanka macaanida fahanka macaanida Quraanka qofkan Quraanka uu barana oo xifdina kaliya inuu tartan ku galo inuu maxal lahay lacag ku helo inuu masjid imaamka uu kaga noqdo inaan u barana ay u egtahay badankeena oo intaas faa'iidooyinkaas aan ka raadin adduunyaha markii waxaan daaqad ka saarnay fahankii Quraanka iyo macaanidii marka seen soo nooleyn karnaa macaanida Quraanka iyo fahamkiisa ustaadi waa baasantahay hadda sheekh Masaarino ayaan rajeenayo wuxuu yiri Quraanka waxa lagu tajwiideeyo Quraanka aad loogu soo tajwiidkiisa xakaamtiisa Masaari lama gaaro hadii imaam la waayo imaam lama raadiyo wiidka fodheeraha asaasa ugu fiican Quraanka waa xaafidiin waa Quraanka waa fiican yihiin Soomaaliya lagu xifdiyaa la Quraanka nin ada Carabahan tagta ama dabadan kale aad tiraahdo yaa tahay Soomaaliyan ahay xaafidata lagu leeyahay لكن waxaa ku liidana macaanida iyo fahanka Quraanka Sheekh Maxamed Macalin Cabdi Umar ka sameeyay maxay ahayd barnaamijyad badan oo kaga hadlayo Quraanka wuxuu leeyahay waa xaafida tahay qaariya tahay qaariya lagu leeyahay hal aayada akhrinaysid aad ku dujinaysid salaadana ma macaanida ma fahansanid marka waxyaabo aragnay kamid tahay qofka waxa laga rabaa Quraanka markuu waa barana uu leeyahay saxaabada maxay sameeyeen jireen radiyallahu anhum ridwanullahi alayhim waxay sameeyeen jireen 10 aayad oo nabiga ka qaadana Quraanka markuu soo degay waa tanziilul wahyi markuu soo wahyi uu soo degay 23 sano قرآن كست 10 آيات وقادنا 10 كاس آيات وبرنا وحي حكامة وحي معاني كجرو ما قد بقى إلا 10 كا وكحسله قفك دوسات سماي كورن قرآن كم كورن ما حكامتي ما هي معاني ما هي بس ما هي وهاي قفك وحال إنه دلال ربع ونلشة قرآن كسا وكل دلال معاني ديسا دين ترى إنه برتو فهمه النبي صلى الله عليه وسلم نحوي حديث صحيح وحسنة مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين قف إلهي خير لضانه وفهنسية دينك دينتي سؤال فهنسية
marka haddaad aragto adoo qur-aankii baranayo macaanidii raadinayo dadaalayo sacyi badan iyo dadaal iyo juhdi badan ku jiro khayr alla kula doonay alla u shukri waay ustaadi qur-aanka siduu nolosheena saameyn ugu yeelan karaa qur-aanka nolosheena sideen u tatbiiqin karnaa nolosheena ugu sugi karnaa qur-aanka horta ustaadii wax walba oo qofka uu baranayo inuu ku camal falo waa dhaqanka qofka inay ka muuqato waa qofka maanta markuu yahay qof maxay ahayday social media caanka oo kale wuxuu caan ku yahay waa ka muuqata waa laga gartaa dhakhtar muxuu yahay qofka oo xaflad meher uu ka hadlayo wuxuu leeyahay caafimaadka cuntada cunaysa uma fiicno qofka diinka bartana saa laga rabaa qur-aanka qofka wuxuu saameyn ugu yeelan karaa qur-aanka inuu ku camal falo qofka qur-aanka oo ka dhaqan iyo caado dhigto qur-aanka wuxuu ka diidan inuu ka haro wuxuu yidhi qur-aanka amrayna oo ilaahay ku amrana subxaana wa tacaala inuu qaato iyo qofka habeenkiina wax ka lahaado maxay ahayday habeenkii qur-aanka uu soo kaco wallaahi alladii laa ilaaha hayruhu waan tijaabiyey macaanka ka fiican ma arag qofka inuu habeenkii waqti hore sixdo oo maxay waqti dambe uu soo kaco oo tukado salaatuleyl tukado qur-aanka uu akhristo macaan ka fiican nolosha lama helaayo macaankaas nin shaacira markuu ka hadlay qiyaamu leylka iyo ahlu qur-aanka markuu ka hadlay sib qiyaamu leylka wuxuu yidhi lilaahi qawmun akhlasuu fii xubbihi faradiya bihim wakhtasahum khudaama qawmun idaa janna adhalaamu calayhimu باتوا هنالك سجدا وقياما خمس البطون من التعفف ضمرا لا يعرفون سوى الحلال طعاما قيام الليل بكو كهذا قيام الليل كعضي أجر بدنا الله ذا هاي وإلهي وقتي وسام الدنيا وسود دقايو سود دقيس أخلا أنت شرفتي سوينانتي وسود دقايو ولا هاي يا وحي ودي سنة يا أنسيا يا دمنافي ودي سنة أنسيا يا وحي ودي سنة يا أنسيا كل لي هاي وحي ودي ست سراد واتوكتي قرآن كيقول صلير معان كفي عن نفط معاك هي ليس كميتها هذا جرك هلا عنتو ruuxdana iyo nafta waxay helay macaanka salaada iyo quraanka waqtiga la akhrin wax ka macaan badan ma jiro saxan laga soo gaaro أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون qofka marka inuu habeenkiisa weyneeyo oo min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka qofka habeenkiisa quraan inuu istaago quraankan ku nooleeyo ilaa waqti saxar laga soo gaaro oo salaadii soo dhawaato kadibna uu sameeyo كانوا قليلا ما يهجعون بالأسحار استغفروا لي ماذا خير كفي عم تشرب أستاذ إلهي سبحانه وتعالى كبارك أنا كنا حفظيه أستاذي سؤال أن كويدينا يا واحد هاي سؤاله قدام بكم ذا أستاذي عيد القرآن ك مركي عاد أخرسه معنيه الدريميس قلبي كدريميس ما أنت أنا هذي مروق هي حتى macnaha si markii loo fiiro dhan murugo iyo dhan farxad aad ka dareemayso aayadaas iyo adduunka farxadiisa iyo adduunka quruxdiisa oo dhan ku ilaabsiinaysa aayadaas ustaadi aayado badan waa jiraan oo waxa kamida waxaan doortay hal aayad oo waxaan doortay oo aan jeclahay mar rabna aan akhriyo oo suuratu ishaga al-anfal aayada labaad وإلهي وليها إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا الله أكبر سورة النساء إلهي لا يحب الله جزء بقاس جهر بالسوء ضدوا صوت شيء أولئك هم الكافرون حق أولئك لكن تنا أولئك هم المؤمنون حقا أليري الله سبحانه وتعالى أساء قرر إنه يهين ضد إيمان لقاه على رسول رمي لكن محله بحري أنت سوق قضوا لو سحري قضوا لو سحري وجلت قلوبهم عبسطوا إذا ذكر الله وجلت قلوبهم آيات دلوا آخرين زادتهم إيمانا ربي وتلسعتان الذين يقيمون الصلاة هو صلاة أوجوا يري وحن كو إرزقنا النفقة وبحيو كذب أولئك هم المؤمنون حقا كوا سوحين كوا مؤمنين أو حق أو ربه مؤمنين ربه الله قرأ سبحانه وتعالى الله أكبر إلهي سبحانه وتعالى هنو زيادة سادي عيد وعيد آد وعجائب بدن معناه هذا سريع إلهي سبحانه وتعالى مؤمنين تسحنا ودروا سادي محاد أو فرين ودريس حوالا لها كحرم بولشة تي في وداون دون موقال كان محاد طلع ودري لهاد أو كنا وان لهاد كنا سابسان قرآنك بولشة تي في يو لمان صومالي وحالي هاي هرت إلهي هاي ذي بركيو إلهي ندين تهنقوه السوق لمان تينا خاصة دليردان خير كدوه بولشة تي في وإلهي خير بدنا هسيو إلهي نها حفظي الله نهاي waxaan leeyahay quraanka laga caado dhigto hal akhri maalinkii hal aayad laga akhriyo nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiidka Aisha radhiyallahu anha hooyadeena ma maxay tiri oo xadiidka ka soo waran nabiga wuxuu yiri ilaahi acmaal xaqi waxa lagu jecel badan yahay amaasha la qabto la daa'imo mar walba amaasha la daa'ima la jecel yahay hal aayad ina akhriso barna hal aayad akhriso waxay ka fiican tahay soddon maalin ka maqnaato bishii marka kadibna hal mar quraanka qatimto waxa ka fiican hal maalin walba aad akhriso
marka quraanka laga caado dhigto quraanka habeenkii halala maxay ahayd noolaado halagu dadaalo quraanka Soomaalidu waxa leeyahay quraanka lagu dadaalo quraanka ku amaananahay macaniisna aan ku darno fahmo fiican Allah ina siiyo baranjeynayna dhamaanteen aniga ugu horeeyo iyo walaalaha kale in wax badan aan faa'iidnay xalqadaana ay ka xiis badnaan doonto xalqadihii hore iyo kuwa dambe insha Allah aan rajeynayno inaan ka duwanaan doono kuwa soo socda Ustaad Cabdijabaar aad oo maasanta Ilaahay subhanahu wa ta'ala aku xifdiyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxad walba aad ku haminaysa ku siiyo dhamaan walaalaha ku xiran bulshadii waxaan idin leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala haydin xifdiyo waan idin salaamayna nabad geliyo aan idin leenahay wato assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh